halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somaly com. jimco wanaagsan dhegaystayaal waa galab 1 bisha Juun 2018 idaacadeena waxaa wadajir halkan idinkugu daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buulla Jaamac. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taala dalka Canada oo xukuntay in Mareykanka loo soo gacan geliyo wiil Soomaalida Canada oo lagu eedeynayo inuu ku lug lahaa arrimo argagixisnimo. waxaa kale oo aad maqli doontaan Professor Jawaari shaqooyin badan ku jacay waa jirtay laakiin arrintaas waa ka hoos baxday waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factionno rabay inay asaga isticmaalaan warnamaha xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo. waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dawladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari inuu dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmay. kan midda ay dawladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye yaa bararta baawrka hana waaye madaxweyne waa baawrka hana waaye sanadii waa hana waaye xukunka kalena jiro afsirka xukuumadda kalena jiro. kuwaasi waxay kala hayeen wasiirka dastuurka dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xooj Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Xaashi Khaliif oo ka hadlaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isbedelada dhawaan lagu sameeyay guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya. qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xiisadda ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo dalalka waqooyiga Ameerika ayaa sii kordhaysa kadib markii 25% uu Mareykanku ku soo kordhiyay cashuuraadka alaabaha biraha loo soo dhoofiyo Mareykanka iyo 10% aluminum-ta laga keeno midowga Yurub, Canada iyo Mexico, taasoo Jimcaha maanta bilaabmaysa. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xaddiga mugga ee dalalka kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka cashuuraadkan lagu kordhin sida xogayaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Ross oo telefoonka ugu sheegay wariyaasha. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay tahay inay xushmeeyaan oo ay difaacaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyay go'aanka Mareykanka. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti-wadaaga ah ayaa la wareegaya ra'iisul wasaarenimada dalka Spain kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy dhumiyay kalsoonidii golaha shacabka. waa markii ugu horeysay oo muddo 40 sano ah ee dimuqraadiyadda Spain oo golaha shacabka shaqada ka eriya hogaamiye xukunka hayo. Pedro Sanchez ayaa ku guuleystay 180 cod halka 169 kalena ay taageereen ra'iisul wasaaraha talada haya ka aamusay. guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. boqorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doona Pedro Sanchez oo 46 jir ah. Pedro Sanchez waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii 70 iyo intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 40 sano ka hor. ugu dambeyntii ra'iisul wasaarihii xukunka laga tuuray ayaa u hambalyeeyay midka xilka la wareegayo. Mariano Rajoy ayaa u tallaabay daanta kale ee golaha shacabka isla markaana gacan qaaday ra'iisul wasaaraha cusub oo xilka ka tirsan doona dhawaan. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyay wadahadaladii Khamiistii dhex maray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Chol, kuwaasoo kulankooda ka dhacay magaalada New York. labada dhinac ayaa ka wada hadlay shirka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Trump. waxaanu ka sameynay horumar wanaagsan shirarkeenii 72 saac qaatay ayuu Pompeo ku yiri shir uu saxaafadda kula hadlay kadib kulankaasi, isagoo intaasi ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo in dhinacyadu ay safgartaan. tartanka hingaada afka Ingiriiska ee Mareykanka lagu qabto sanad walba ayaa waxaa ku guuleystay wiil yar oo 14 jir ah oo ka yimid gobolka Texas.
wiilkaasi oo lagu magacaabo Cartin Nemani ayaa sheegay inuu arrintani ku riyoonayay sanadihii lasoo dhaafay oo dhan. Tartankan oo la qabanayay 93 sannado ee lasoo dhaafay ayaa waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada ka mid ah gobolka Maryland ee duleedka magaalada tan Washington. Tartankan ayaa ugu horeyn waxaa ka qayb galay 515 ruux, hase ahaatee waxaa wareegii ugu dambeeyey kusoo gaaray 16 qof. Marka laga tago inuu sumcad bulshada ku dhex yeelanayo qofka ku guulaysta tartankani, waxaa kale oo meesha ku jira in uu ku guulaysan doono lacag ka badan 40,000 oo dollarka Maraykanka ah. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. ha yeeshee aynu ku horumarno qodobada kale aan idin hayno. maxkamad kanada ku taalla ayaa aqbashay codsi dowladda maraykanka uga yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejiyo wiil soomaalida kanada oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Syria ay ka wadaan kooxda ISIS. hase yeeshee qareenka wiilkan ayaa weli ka biyo diidaya go'aankaas. jaamac buulle jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintan. maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Maraykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olole ay dhalinyaro dhowr ah oo Maraykan ah iyo Canada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhadda dowladda Islaamiga ah. Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la hor keenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdulaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahi uu ka tegay San Diego Maraykanka iyo 3 kale oo ka safray Edmonton Canada iyo iimaylo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdulaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaala Edmonton Canada oo isaga iyo ilmaadiradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wada bariga dhexe. 4 dhalinyaro ah oo ay ilma adeer ahaayeen Cabdulaahi kana kala tegay Canada iyo Maraykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. wiil magaciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirista jamhadda dowladda Islaamiga ah oo ay ilma adeer yihiin Cabdulaahi ayay hay-adda dambi baarista Maraykanka FBI heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa 173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi ayaa caddaymaha la hor keenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay caddaymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. tusaalena waxa uu u soo qaatay iimaylada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayay inuu Cabdulaahi wax ka qoray. qareenka ayaa ku doodayo inaan la caddayn karin iimayladan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la caddeeyo in uu Cabdulaahi wax ka qoray. xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi loogu wareejinayo dalka Maraykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxiixo wasiirka cadaaladda dalka Canada. Cabdulaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu racfaan ka qaato go'aankan muddo 30 cisho ah dhexdeeda ah. sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Canada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arko dacwadani in ay ku salaysan tahay. jaamac buulle jaamac ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inoo faahfaahinaya. halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale, haatana ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka. wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya.
isbeddel waxaa lagu sameeyey hoggaankii baarlamaanka goor sii horraysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka. maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddelladan u samaynayso mase yihiin kuwo dhaba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hogaaminaya? inta aanu u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xooj jibriil, brofesor cabdi ismaaciil somataro wax ka dhiga jaamacadda minnesota, iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho, waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa sahre cabdi axmed. haye sahre. mahadsanid falastiin. wakhti aad u gaaban oo ka yar muddo 2 bilood ah oo isxigay ayay dhaceen isbedelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka. tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadaysan, laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn, waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay. inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meelmariyey sanadkii 2014 haddana ma aysan suuroobin in la dhiso golaha, waxaana kii ku-meel gaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud maarj 2015 isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsaneen nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday, waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku-meel gaar iyo mid rasmiya intaba. abukaati cabdikariim maxamed soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba ka soo shaqeeya, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho. waxaa dhacday golihii adeega in la kala ceyriyo, taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharcigii lagu dhisaayey. waxaa la yidhahdaa golihii adeega ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay, kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qaybgalaya la sameeyo. marka waxaa cad in xataa sharcigaas matarkiisa qodobkiisa 5 waxaa la sameeyey sharcigaas 3 Juun 2014 ayaa la ansixiyey oo baarlamaanka u baasgareeyay. marka qodobkiisa 5 farqadiisa 3 waxay si cad u sheegaysay howlwadeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo. waana mid logic ah, taasna ma ayna dhicin oo waxaa dhacday in golihii la kala ceyriyo. waxaa dhacday madaxweyne xasan sheekh inuu ku magacaabo dekareeto, uu ku magacaabo gudoomiyihii maxkamadda sare, waa gudoomiyaha hadda jira oo gudoomiyaha maxkamadda sare dekareeta lagu magacaabo looga qaaday Elka Xanaf. xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq, gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday asaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa asaga. xildhibaanada inkastoo aysa arrinkan si rasmiya u soo faragelinin doodana aysan ka yeelanin, haddana weli waa ay ku kala aragti duwan yihiin. xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan. annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba. waxaan u malaynayaa dawladdu inaysanba aaminsanayn inayba tahay baarlamaanka uu joogo ee sharcigiiba. horta dawladdu ma aaminsanaba, waa midda koowaad. midda labaad, in la soo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa, dee inta laga qorayay waa ujeeda inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay, inuusan ahayn nin halkaas jidgarayn kara. ee meel walba hadda Soomaali waaba laga sheekeeyay oo tan laga sheekeynayo. marka haddaan walaalo macaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo. waa mid loo wada jeedo. baarlamaan ninkaa lama soo marin, isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse garatay, waxay laga soo jawaabo oo layidhi ninkaas inuusan meesha uusan jidgarayn karin, meeshaas uusan geli karin. laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan daahir amiin jeesow oo isna isbarbardhig ku sameeyey waddada hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamuud uu maray. mar haddii guddiga adeega garsoorka aan la dhisin, shalayto guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay, hadda madaxweynaha wareegtay awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday. marka wax qalad oo aan ka hadalno hadda meeshaas ma jiraan, laakiin sida ku habboon waxaa weeye in hay-adaheena oo dhan ay ku-meel gaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddiga adeega garsoorka. laakiin hadda guddiga adeega garsoorka nooma samaysno, guddoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid uu ku baxay. marka baarlamaanka uma malaynayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli kara male. haddaba su-aasha taagan ee isweydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmiya uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare ayadoo aana la dhisin guddigii adeega garsoorka dalka ee 9 xubnood ah.
waa kan mar kale abukaate cabdikariin maxamed soomaali. macnaha maadaama uuna matalayo madaxweynuhu golo adeegna uusan jirin macnaha waa mataqaanaa meeshaas waxaa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta ummadan fiirinaya. meeshan cabasho badanaa ka dhacday, golo adeeg ma jiro, markaa golihii wasiirada lasoo marsiiyey soo jeediyeen, isagana dekareeta kusoo saaray. laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan, waayo golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbay madax banaanidiisa marka saas loo dhigo. laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo, ilaa ay haddana lama samayn. goor la samayn doonana ma aqaano. marka caqabado badanaa jira waa ognahay, laakiin waxay ahayd sharcigii horeba 30 Juun oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin. kaas xataa lama raacin. isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka aysan kala saarnayn, weli wax badan sharciga ku-meel gaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin, qabyana ay yihiin, ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisnayn oo uusan dhammaystirnayn sababo la xiriira ayadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee 9 xubnood ka kooban, ayadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'nayn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababo la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso. waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay. Falastiin. mahadsanid sahra, aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahre cabdi axmed noo diyaarisay. haddii aan mar kale idin xasuusiyo, barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho, brofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota kuna sugan dalkan Mareykanka, iyo cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa hay-adda Heritage ee magaalada muqdisho. aan ku hormar wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil, maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyay ee lagu sameeyey hogaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka, gaar ahaana tan maxkamadda sare oo kale? dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliya ay samayso ama ay awoodda marorsato. maxaa uga jawaabi lahayd adiga? waxaa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform. hadday noqoto dhinaca baarlamaanka, saa og tahaybo ummadda Soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan mooshinno aan micno lahayn oo aanan ku salaysnayn sababo muhiim ah. runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado, taasna waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programkii u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walbaba. maxaa yeelay wasiiro cusub baa 6 bilood ba yimaada, prime minister cusub baa yimaada 9 bilood cusub. dadkii qofkii xakamayn lahaa waxa waaye guddoonka baarlamaanka professor Jawaari. shaqooyin badan ku fiican waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factionno rabay inay asaga isticmaalaan warramaha xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo. taas waa midaas. midaan kaleeto waxaa ku saartay maxkamadda. tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa inuu horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka. saan ognahay garsoorka Soomaaliya waa burbursan yahay. yani ma aha kaliya inuu musuq maasuq u dhintay, laakiin waa burbursan yahay, waa broken. marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu sameyn lahaa garsoorka. prime ministerka laftigiisa programka xukuumaddiisa waxaa udhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo. nasiib daro garsoorka ninka ugu sarreeyay wuxuu ahaa Ibrahim Iidle oo ahaa Supreme Courtka, wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa, laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay. musuqi jiray siduu ahaamaana waa kasii daray. marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaada. madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waktigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeya. waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa professor cabdi ismaaciil samatar. ramadaan kariim. Falastiin iyo dadka ku dhageysanaya duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta, nin baa dhalinyaron garanayaa. waxa weeyaan wasiirku uu ku mahadsan yahay, laakiinse waa in runta la isku sheegaa. haddii run la sheegi waayana roob di'i maayo.
waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dawladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday jawaari una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin. horta taasi waa wax cusub oo soo baxayo dadku markii hore hay ogaayeen laakiinse dawladdu hayna qiranayn. tan labaad waxa weeyaan markaa in jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira sidan baa jira haddii la yidhina dee ummadda umay sheegin, haddayna jirinna dee kaba daranba taas. marka inay dawladdu ku eedan tahay jawaari kamuu keenin mooshin dawlad weli sidii maxamed cabdullaahi loo doortay. markaa shikiga iyaga ku jira waa inay soo caddeeyaan oo banka soo dhigaan. tan kale maxkamadan ka hadlanaa walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin, meeluu kusoo qorayna ma jirto in Ibrahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiyo ee garsoorka u sarreysa inay musuqmaasuq qaateen. marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo. hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan, muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibrahim iyo wixii la caanamaala madaxda u noqon lahaa? muxuu soo samayn waayey? marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro, ciddi doonay ahaado, ama madaxweynaha ha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ha ahaatee. laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuqmaasuq ku yimid jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayay. marka ha lasoo wada bandhiga waxaasoo dhan walaal ha la caddeeyo. waa mahadsan tahay haye cabdirashiid. waad mahadsan tahay Falastiin. horta maxaa la yidhahdaa bedelidda jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa habboon in mar kasta horta la haysto dastuurka. qof kastoo Soomaaliya inuu dastuurka koobi ka haysto oo inaan calankeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheena meelahay yihiin iyo magaca dalkeena. waxaasoo dhan ku xaqiiqayo oo cadeynayo ay ku caddahay waa dastuurka oo lagu wada joogo oo qofka madaxweyne ku yahay kii guddoomiyaha kii xildhibaana. marka hore dastuurka marwalba in loo soo la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim. ana markaa maalintii dhaweyd aan akriyay wareegtadii soo dhacday madaxtooyada kasoo dhacday tii email ahaan nooga soo dhacday. wixii u horreeyay aan sameeyey waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo. qodobka 9 baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo maaragtay gaar ahaan xarafkiisa waa ka hadlaya. marka waxaan siri macnaha qorsiyada dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysta shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo. inkastoo aan marar badan usoo joogay qodobkuna aan usoo joogay. marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo. dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka. dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad sare ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo. marka su-aasha anigu aan aqoon oo hubin oo aan jeclaan lahaa haddii wasiirku aan naga jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dawladda ay cadeyso sida doctoorku yirina aniga waxaa ila madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoorka dhiso. haye wasiir. cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka waad ku saxsan tahay. dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo tala bixin ama recommendationaas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya. waxa yaallo sida cabdirashiid hadduu sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna. sababta u dhisna waay marka idin sheegaya. guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey. baarlamaanka 9aad oo aniga aan ku jira ansixiyey. xubnahoodii baa waxaa la hor keenay baarlamaanka 9aad. baarlamaanka 9aad soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay. uu soo celiyey xubnihii la geeyey. haddii markaas la baasgarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor. laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro. yani sababta madaxweyne xasan sheekh ku khasabtayna inuu markuu ka qaadayo kaxanaf uu dekreeto uga qaado iidlana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka.
haddana guddiga adeeg garsoorka ma jiro. dekreetadii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub. saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda horyaalla waxa waaye in la dhisaa guddiga adeega garsoorka sida ugu dhaqsi badan. wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku hayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijkan u yidhahdeen waxaan rabnaa inaan dardargelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka. waxyaalaha ugu horeeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka. guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxaa la rabay xubno ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka, guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan, guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah, xeer ilaaliyaha, ururka qareenada, guddiga noocaas inay ku jiraan. waxa hadda aanan jirin waxaa waaya maxkamadda dastuuriga eed ma dhisna, soo xubintaas ma la heli karo. guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis, wuxuu hor yaallaa cabinet. markii la baasgareeyo xubintii kale waa iman kartaa. wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. waxaa inii sheegaa madaxweynaha waxyaalaha kaloo ku qasba waxa waaye waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaalo ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka imaan karto. saas awgeedna hadda wuxuu magacaabay guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo faylalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin leh ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa. lagalama hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe. arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan joogo oo armchair critic ah uu inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo. laakiin runtii carqaladooyin waaweynaan haystaan runtii oo qaarkood ay keeni karaan dhibaato waaweyn. marka wasiir halkaasaan rabaa inaan halkaas su-aal kaa weydiiyaan rabaa. haddii aanay dhisnayn maxkamadii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd guddiga adeega garsoorka, inta maxkamadda sare wax laga bedelayo maxaan loogu mashquulin in guddiyadaasi lasoo dhiso waxyaabaha dhiman si loo soo buuxiyo? tan kale waxaa sheegtay in guddiga hore loo celiyey sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay. dowladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dowlad isku nuuc ah oo isku fakara ay dhisto, sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto guddi adeeg garsoor xilligan? horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaad tidhaahid maxaa loogu horumari waayo guddiga adeega garsoorka. labadaba waa la samayn karaa. tanna waa socotaa. guddiga adeega garsoorka oo ku sheegay process ay maraysaa oo guddiyadaas dadka xubin kamid ahaa waxooda la dhisa. waxaa kamid ahaa guddiga xuquuqul insaanka oo bulooyin badan socday, waa lasoo dhamaystiray. maxkamadda dastuuriga ee sharcigiisa waxaa gacanta ku haayo wasiirka cadaaladda, marna waa la keeni doonaa. xubintaas waa dhismi doontaa. laakiin macnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameyna. sababta guddoomiyaha meesha looga qaaday guddoomiye ila waxay ahayd ballanadii lala gala waxay ahayd inuu qayb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeya. runtiina inta uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameynin, raallina kama uusan ahayn. waa mahadsantahay. marka yani waxay iska sii socdaan wixii ma soconayso. waa mahadsantahay. waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil. walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsana, wasiirka isagay u taallaa taasi. laakiinse dhowr su-aalood in ummadda looga jawaaba oo challenge ku noqonaya madaxweynahan anigu halkan qaba waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbedel cadaalad ku dhisan in la sameeyo, sidee bay ku dhacday nin dhalinyaro ah oo digrii qura sita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo? taasi waa ta koowaad. ta laba oo ummadda in madaxweynuhu intuu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayey cid kale oo khibradan leh waa kow. ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay. dhulka maxkamadda ugu sarreysa ma soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira. maxaa kuwaa loo soo marin waaye? mise guddiga la usaariya madaxweynuhu kasoo talinaya dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda, wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasa oo madaxweynihii iyo dawladdiisa ay ku shuqul leedahay. markaad waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gebagabayni waxaa jira dad aanu isnaqaano oo waddanka degan. haddii walal ka yidhi qolooyinka kursiga iska fadhiya maraykan iska jooga iska hadlaya, nin loo yara ayaa jira tilmaamaan kusiinaya walaal falastiinaya oo khibrad weynna leh oo gobolka weliba kasoo jeeda Puntland.
ninkaasaa la sheekaystay qolooyinka madaxtooyada jooga markaasuu yidhi waar guddiga garsoorkaan interested ku ahay maxaa loo dhisi laayahay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda dastuuriga jidkaa loo mari doonaa taana weli ma rabno marka iniinta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii nin wasiirkoogiya la keenay inuu noqdo ra-iisul baarlamaankii oo kharash lagu bixiyey nin yar oon waxba garanayn oon khibradna lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamaddii ugu sarreysay waddanka waxaa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dawladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si hay u sii diyaarsadaan jidka hay doonayaan inay maraan inay gobolladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020 sii salaxdaan qastiga loo jeedaa waa taase maaha wax musuq maasuq la dagaalamaya ma laga yaabaa laakiin ma laga yaabaa duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalka ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaabaa duruufta waddanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta ah walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye hadduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhiyo anigu waddanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dawladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskaan la sheekaystaa macallimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dawladda ku jira ama villa Soomaaliya fariya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo waddanka gudihiisa waxa socda walaal waa mahadsantahay hay Cabdirashiid horta dawladdan dawlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli intii la soo qabayo gobolladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida Soomaaliland oo kale ay jamhuuriyadda dhan ku go'an ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay horta dawladdan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dawladdii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tabartoodana waa iska yar tahay cudashada yaallana talada ka badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha awliyawaad ah oo macnaha oo priority ah oo in wax laga qabto loo baahan yahay amnigaasa ka mida hay-adihii qaranka in la soo celiyaa ka mida marka maxkamadda dastuuriga ka mida dastuurka in la isku waafaqaa ka mida waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaan oo kalaa burburay in dib loo katabo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharciga oo aada iyo aad loogu dhaqmo oo macnaha siduu u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo qofka sansaankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadka waa la isku wado si dawladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dawladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne iyo rasaare ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu guddiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa la dhahaa ururkaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaaraha hadda waxyaabaha uu wasiir xoosh u tiirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada leh oo wasiir xoosh uu ka tirsan yahay ra-isul wasaaruhuna uu guddoomiye u yahay laakiin ra-isul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal dog buu ku qoran yahay oo dastuurka ka mida shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisa wuxuu qaba maahan dastuurka wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si midaysanna ay codka go-aanka u gaaraan oo dalka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dad iska soo magacaabiyo ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-isul wasaare leh inay si ugu jajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda marka madaxweynahan iyo ra-isul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively maraykanka waa taqaanaano waa maadsanta Cabdirashiid leeyihiin madaxweynuhu hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada madaxweynaha xataa karaam ceyrin kara markaa inkastoo aysan dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada awood bay leeyihiin waa kugu soo noqonaya Cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waktigaan awoodda inay awoodda gacanta ugu jirto wax dhaqaajiyaan haddii 2020 ay soo noqon karaanna
inay soo noqdaan waa rabaan, ceebna maba ahanba qofkii siyaasad gacanta kula jiro inuu rabo inuu sii joogo. laakiin waxaa moodaa golaha wasiiradana xoogaa si inay sida hoos u hadlaayo kale ayagaa taladeeda as council ahaan, madaxweynena tala ma lahan guddiyaashan iyo waxaas dhan waa oday guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejintuna dee uu yaqaana wasiirka. waa mahadsanta cabdirashiid baa rabaa inay dawladda bedesho lagama rabo macnaha. waa mahadsanta cabdirashiid. haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa VOA Washington, waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoosh jibriil, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk Soomaaliya, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa Machadka Heritage ee magaalada Muqdisho. waxaan rabaa wasiir xoosh inaan siiyo wasiir, maadaama isbedelo ay dhaceen siyaasad ahaanna wadanka uu iska dhib badan yahay, sida aad sheegtana xaalado aada u adag ay ka jiraan, ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago waxbedel hawsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso duwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda daneynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fadhiisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada? makuu muuqataa baahidaas hadda? falastiin waa mahadsan tahay. horta waxaan kuu sheegaa friend cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynehana wuxuu leeyahay awoodo, prime ministerkan awooduu leeyahay, laakiin yaanan iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagaysa golaha wasiirada. markaan labada kusoo celinayan wax kale kama hadlayn, waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hala sameey ah waxay ka socotaaba in madaxweynaha programkii uu ku galay electionka iyo programkii prime ministerka uu golaha shacabka uu geeyey markii lasoo la ansixinayo. saasaan aan ka waday. midaan da usoo noqdo, aniga waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo wasiiro dhowra ku jiraan oo isniin walba shirta, oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhamaystirkiisa, election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si lagu gaari lahaa oo qof iyo cod ah, iyo sidii loo samayn lahaa federationka, siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobolada iyo dowladda dhexe. isniin walbaana fadhiisanaa. waxaana kasoo qayb gala guddiyo kaleeto, guddiga madaxa banaan dastuurka, guddiga xuduudaha kasoo qayb galaan. isniin walbaan fadhiisanaa, wixii la qabtay iyo meesha la joogay laga hadlaa. hadda weekan waxaan u soconnaa baydhaba u soconnaa in laga hadlaa. guddiga aad sheegtay hadda wasiir aan ka shaqeynayn waxyaala loogu talagalo waa inay keentaa siyaasad degan oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keentaa. laakiin wasiir halkaasaan wax kaa weydiin waxyaala waxaa jira xanuun badan, laakiin in la qabta ay tahay. waxyaalahan hadda la sameeya kamid a oo isbedelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay, laakiin isbedel kastaba xanuun u keenaa. marka in aan fiirinana cabdirashiid mudu sheegaya sax waa, wadan caadi ah ma nihin. wadan waxaan nahay sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in laisku soo celceliyo tartiib. laakiin wasiir sida hadda aad sheegtay walbaba aan ka fiirino musuq maasuq iyo ta kalena World Bank iyo IMF-ta waxay aada noogu amaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loo ka cafin lahaa, noogu amaanaysaa in musuq maasuqa si fiican loola dagaalamo. wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro, laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. guddiga aan ka hadlayna waxay tahay inaad ku soo dartaan dadka siyaasad ahaan aadan isku fekerka ahayna. xildhibaanaa jira ka soo horjeeda xukuumadda ama aan ku feker ahayn, aqoon-yahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan, si aa u ogaatiin waxa banaanka ka socda. soo maaha xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato. adinka bisa is dhegaysta. guddiga loo dhayan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah. okay marka waa ismaan dhaafna umalaynaa. guddiga kan waa guddi fulin waaya oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waay, oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa, kaas mogta. laakiin midaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo. waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha mataqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Gurey Xaaji iyo oo lagu qabto xamar bishiiba mar. wasiirada tagaan oo aniga kamid ah waan laga doodaa, aqoon isweydaarsan ku sameynaa, fikrado badan aan kala qaadanaa. marka micnaheeda ma aha waxaan qabanaa shirar badan. waxaan kaloo sameynaa wasaarad kastoo jirto
waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhigeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan waxaasoo dhan ujeedada waxa waa in la helaa siyaasada loo wada dhan yahay oo hal meel loo wada socdaa. waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa professor cabdi ismaaciil samatar. walaal waxa weeye riwaayadda ka jirta meesha dawladda lagu sheegayo filla soomaaliya haddii soomaali way ka dheragsan tahay inay iyaku sheekaystaan inay iyaku isku meeraystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro. marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadkaa kala jeeday ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin. taasi waa ta koowaad wey. waxay ku tusaysaa sakhradda ka joogta magaalada villa soomaaliya ee la isku meeraysanayo. number 2 arrin weyn oo muhiima oo cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi somaliland. waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee villa soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gulageli lahaa sanad iyo bar dabadeed markii dawladdan iyo madaxtooyadan la dhisay. marka amuurahan had ka hadla sidee baa loo galaa in dadkii laysku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga ismuulayn waxa islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay. marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen qaar cusub baa yimiday. marka haddii aan la dhagogasha caynkaas ee madaxa bannaan ee waxay soo gooyaana hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa dib u heshiisiina iman mayso midnimana iman mayso. haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumayda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu fara jiraa gobollada qaarkood kale waa su-aalaha la isweydiinayo. haddii maalan dad culamo ah oo ilaaha ka baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyiin ahayn oo gobolladoo dhan ka yimiday oon qabyaaladi ku jirin waa la heli. kuwa inta laysku keeno la yidhaaho bal arrintan dib u heshiisiinta inakaa nooga fara dhuubane dawladdu hay nii dhiibtee ka soo taliya waxaad ka soo talisaan ee dastuurka ogol yahayna waanu ku tolanahay. ra'yiga caynkaasa lama keenayo. markaa dhowr qof intay isku meeraysanayaan villa soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo soomaali oo dhani hay rabto. hadalkaygana waxaan ku gabagabayn u lahaa haddii laleeyahay cabdi samatar halkaasuu iska fadhiya oo waxbuu kusoo taagayaa waa la iska odhan karaa taas weeyaan. laakiinse dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dawladdu dhegaysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama cabdirashiid oo kale ka hadasha. haddaanaan ka hadal oonu dawladda shacabka u tunno waa nasiib daray noqonaysaa. marka hadalku waxaa loo sheegaya runta waxaa loo sheegayaa maaha dawladdaa la neceb yahay maaha hebel baa la neceb yahay war waxani sidaasu ku saxyahay ha la sameeyo. haddii la samayn waana dee ummadda ha loo soo bandhigo walaal. aada umahadsan tahay. waxaan siinayaa cabdirashiid maxaa xalka u aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dawladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa iyadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto. maxaa xalka u aragtaa? waad mahadsan tahay falastiin. waxaan isleeyahay horta dawladdan waa la doortay oo intay taxsantay baa la doortay. marka mandate baa la siiyey oo marka xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan waktigii la siiyey 4 sano loo qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano loo qabtay xaq wuxuu u leeyahay inuu maamulo. wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoogaa dee fursadna la siiyo oo aan haanta ama maaragtay ilbilig lala qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo dhiibo halkaa marsiya baabuurka iyo xagga marsi aan la oran qofkii maadaama la doortay oo uu tartamay in fursad la siiyey. iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waktigoodana ay aniga shaksiyan waktigooda inay dhamaystaanna waa ila fiican tahay. in fursad la siiyana waa ila fiican tahay maadaama ay guulaysteen. maraykankaba donald trump intuu guulaystay waa iyadoo la yaaban yahay waa geesaha laga fadhiyaa. taas marka xorta xaq waa u leeyihiin. labaada markii dawlad cusub timaado inay iyagoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay si maaragtay u faraxsan oo euphoria ku jirta ama maaragtay cirka ku farur xiran dawladaha dhan baa lagu yaqaanaa. kadib markii sanad iyo laba ku miyeysan jireen kuwii hore kan hadda sidii horta xogaa aniga weli buugaal iila tahay oo macnaha inay degtay iyo lama ahan iyagaa isla saxsan sida hadda cabdisheege iyagaa isku badbadan. maxaa aniga tusaale ahaan magaalada hadda waxaan joogaa amar muddo dheer baan joogaa
maxaa la dhahaa sanadka maraykanka iyo maxaa la yidhahdaa maxaa la dhahaa guddoomiyihii hore jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-isul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dalka joogtaan nahay marar badan fariimo waa u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama forum uqabano oo su-aala si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda xafiiska ra-isul wasaaraha waa fariinta soo gaartay weli ma aan aragno magaalada la degan marka haddana shaqaarkooda gacanta kula jiraan laakiin midda ay dawladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ayagu ku sheegaan baawarkaan hananaynaa baan ka maqalaa dadka maarata dawladda ka amaada dowdowla ama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waayey malesanaa waa baawarka hanan waayey maxkamadihii waa hanan waayey ethoobiyan baa soo galay waa hanan waayey soomaaliya horta qof xoog ku xukumi karana ma jiro qof sir ku xukumi karana ma jiro sirna lagu xukumi karo iyo maaragtay macnaha indhasharcaad xoogna laguma xukumi karo walaalow baa lagu xukumi karo hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyaatigii oo maaragtay is-afsiinhayo oo isku duceynhayo oo isaala gelinhayo aan is-imaansan dhahay raggii xukunka isku haystay oo madaxweynenimada ninkii isdhaarinhayay oo raayila odinga iyo uhuru oo is-cafihayo oo isduceysanaya markii warka dhameeyeen asaga waxay dhaheen oo dadkaale saas kula dhaqa mar u dhow asagay wax taala hadleen waxaan kusoo gabagabeynaa dawladda waxay u baahan tahay baabuur 12 milyan oo qof oo soomaaliya ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna hal sheer ay ku leeyihiin bay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shirka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haystaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayaga leeyihiin inay xoogaa u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahaya afgooda noo dhigay balcad hadii rabaan iska aadayaan marka looga hari maayo annaga haddaan bulshareedan nahay kuwii ku horeeya arrinta u sheegi jirnay ayaga arrinta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana hab noocaasa oo saas dadkii ugu horeeya yidhahdeen in layskuna dhinfiyo qolana gooni ay u sheekaysan loo baahan yahay sheeko guud in la wada yeesho aada umahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xal is leedahay waa ay noqon kartaa si dawladdan hawsha loogu idgmaday ay u qabato halka waxaa horta cabdishid aan ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhegaysato wax meesha ku jiro waayo runtiina aniga waxaan ahay aada u akristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage waa abdishid madaxda ka yahay maalin dhawed markaan aan daafurkii dastuurka sameyneynana qoraaladoodii iyadoo buweeg ah waa kenya oo dadka u qeybiya waana ka wada hadalnay hataa inaan wada shaqeynaa waxaan rajeynana dialogue inaan la yeelana because waxyaabaha ay soo qoran waa arkay wax oo constructive ah waa runti waxaa kusoo haray arrinta uu professorka yiro dib u heshiisiin culamaa udiin hala keenaa anigu waxay ila tahay personal wadankan 16 dib u heshiisiin oo weyn oo soo maray saasoo kaleeta ah mararka qaarkood waxaa moodaa dib u heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba laleeyahay shir weynaa la qabanaya dib u heshiisiina yani dib u heshiis hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiir juxa markuu joogay waxaan umalaynaa inuu yiri siyaasiyiinta islaayay dadka isma lahayn oo dib u heshiisiina annaga laka hadda halka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe sidii laisugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo resourceskana loogu dhaweyn lahaa citizenka meeshuu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay degan loogu keeni lahaa laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihii securitygina loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waay amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaalihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan baydhabo ku sameyneyno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato axadda marka midaan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkan maxkamadda la keena dhalinyaro waa in la moogaado ma ah wadankeena 70% dhalinyaro waa maanta waxa waaye as a matter of fact waxaa loo baahanya inaan wareejinaa mataqaanaa maamulka aan ku wareejinaa dadkaas ayaga qabtaan xukunka qabtaan dad da-da uu ku jiro guddoomiyaha kale ku jiro ayaa barnaamijsare soo noqdeen marka ma umalaynaa inay tahay taas wax dhibaato ah waa mahadsantaa haye professor cabdi ismaaciil maxaa xalka u aragtaa su-aasha xalka waxa weeye arrinta dhalinyarta dee malaha wasiirku waa duq sideedoo kale malaha isna jegada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 20 jira inuu dhiibo laakiinse markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan
shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay, xoog baa looga baahan yahay, maskax baa looga baahan yahay. laakiinse waxa weeye ninka fadhiisanaya maxkamadda ugu sarreysa waddanka waa inuu khibrad leeyahay, waa inuu soo maray maxkamado, waa inuu kasoo shaqeeyey garsoor kasoo shaqeeyey. laakiinse nin aan intaaba mid lahayn waa nin yaroo dhalinyaro wanaagsan baa laga yaabaa. halkaasaan ku dhaafanaa. halku waxa weeye qof experience le waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyey kow meel walba in loo dhiibo. ta labaadna waxa weeyaan markan ka hadlayo guddi dib u heshiisineed ma aha kii guddigii cali mahdi iyo guddigii cabdillaahi yuusuf sameeyey iyo waxaa kama hadlaya anigu. dadku isma layna waxaa isleeyay siyaasiyiinta islaysay iyo qabqablayaasha islaayay. marka waxaan u leeyahay culamaa uddiin aan siyaasiyiin ahayn, jagooyin siyaasiyiinna aan rabin, ilaahoogana ka baqanaya, iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaano, masalan hadraawi oo kale ama guurihii aawe gacantii dheereyd sheegay ka mid yihiin in la soo xulo oy madax bannaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa la isugu keeni lahaa dadka ininku ka soo taliya, waxaad soo goysaana dawladdu way ku tolon tahay. maaha dad iyaku islaayo la isku keenkeenayo. waxa weeyaan qorshihii strategy waaye. dawladdan waxaa ka maqan oo xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudaheed ha noqoto, waa wixii maalintaa lagu soo toosay. strategies policy strategies ma lahaba, bal wakaas ha laysoo hordhigo. waa mahadsan tahay. aada u mahadsan tihiin. adaa mudan walaal salaamu calaykum. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa Machadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo. aad bay u mahadsan tahay. falastiin ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. halka aad ka dhegaysanaysanna waa v o a. markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya. ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka. iyadoo lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan ayaa aalaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro. haddaba maxay tahay sababta ay arrintaasi u samaynayaan? waxaa inoo faahfaahinaya sheekh bashiir axmed salaad, guddoomiyaha hay-adda culimaa udiinka Soomaaliyeed. ramadaan kaliya intaas kadib nimankan dee fakarkaas yani qaba fakarkan fakar hadda bilowday maaha. fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. nabiguna sala allahu alay wasalam horey ayuu uga hadlay. tilmaamaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad aada iyo aada u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. marka diinta fahamkeeda ku qalloocday. marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska maaragtay bay u shaqaynayaan, oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan. marka waktigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku janno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartegahayaan. walidaalika nabigu sal alay wasalam cali bin abi taalib ayuu wuxuu ku yidhi dadka waxaa ugu shakisan midka caliyo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiigkaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono. waxaa lagu tilmaam inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waktigii saxaabada oo cali ay joogeen oo cilmigu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayey oo khayrka farahayey oo qofkii arday u noqda uu ku liibaani lahaa, qofkii cali bin abi taalib naar ku galaa, qofkaas qof waxaa weye nasiib daro weye. markana waa sida oo kale oo waktigii jannada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajida la xamili lahaa oo ilaadada ay muuqan lahayd oo dhankaas lagu janno geli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan. marka nasiib xumadii nebigu sala allau alay wasalam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo daliishada daliilo ka mida qur-aanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo sheekh bashiir axmed salaad. dadkan diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la samayn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofku inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen. marka waktigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan, waxa ay samaynayaan cibaado ma aha. nabigu sal allahu alayhi wasalam horey ayuu wuxuu u yidhi yuxsinuuna alqawla wa yusii'uuna alficla. hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way samaynayaan. marka khayr baan rabnaa, maaragtay ajar baan rabnaa, in diinkaan cijaynan rabnaa. hadal fiican bay ku hadlahayaan, laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. marka waxa weeyaan waxa ay samaynayaan ayaa khaldan. marka ayaga laakiin waa la fiican yahay. xadiis baa ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan, ficil xunna way samaynayaan. garamaysid marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen, wax aan sax ahayn bay sax moodeen, waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen. marka waxaas oo dhan baa ka khaldan. marka diintii oo kusoo gudoontay ama diintii oo si cagsiga u gashay baa ka soo baxaysa nimanka. culimada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arrintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaaro badan geystaan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan. laakiin arrintan yani xalkeedu waa tiro badan yahay, waa xal iska ballaaran, meelo badan buu galahayaa. laakiin haddii hadda aniga aan soo koobo kan soomaali ahaan anagana haysta ama muslimiinta guud ahaan haysta, waxa weeye muslimiintu haddee markii diinta mas-uuliyaddeeda muslimiinta iska lahaa, hadday cilmi tahay hadday camal tahay muslimiinta laga rabay. marka markii muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyaddeeda ay ka gaabiyeen, daldalool ay yeesheen, ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxin hayaan ayaa soo baxahaya. midaas waa mid kale. waxa weeye dadku haddii ilaahi subxaana watacaala xoogaa laga dheeraado oo ilaahi subxaana watacaala xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo, waa la imtixaanhayaa oo waxbaa lagu sallimahayaa. yani culamada qaar baa yidhaaha maxaanku rahaa waxaa ku qoran kutubadii hore mida ma garanayo, ayaa waxaa ku qoran in la oran jiray qofka ilaahay yaqaana haddii ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu sallimaa baa la oran jiraa layihi. marka horta dadku inay toobadkeena diinta u noqdaan oo diintu anagu aan wehel u noqono ayaa loo baahan yahay. oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay, dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa. dadkaanu isku dhex jiraan, intaasoo nooc bay yihiin. marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa la soo celiyaa. waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama sakarka laga soxo baa loo baahan yahay. kale waxa weeyaan islaamiga o dhan mashaakil baa ka taagan. qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta, xurmadiisii, cadaaladiisii, noloshii wixii o dhan baa xadilan oo maaragtay baylaha ah. marka muslimkii oo xadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan